maalinta bari haddii uu Rabbi saamaxo dalka Mareykanka indhaha ayaa qaban doona warbaahinta waaweyn ayaa halkaasi tagi doonta waxaana sheekooyinka laga soo guri doona aqalka cad madaxda wadamada Yurub hogaamiyaasha NATO iyo madaxweynaha dalka la yiraahdo Ukraine ayaa tagaya halkaasi iyadoo Trump ay la qaadan doonaan kulamo waaweyn bari waxa la gorfayn doonaa xaaladda gobolka gaar ahaan qaaradaasi Yurub iyo mustaqbalkeeda amni meesha uu ku dambeyn doono waxa la iska oran doonaa walaaca mustaqbaleed ee ku gadaaman isbahaysiga gaashaanbuurta NATO waxa sidoo kale la fagor lagu sameyn doonaa dhulka ee dalka Ukraine looga goyn doono wadanka Ruushka iyadoo qaar ka mid ah madaxda wadamada Yurubna ay ku tilmaamayaan hanaanka Trump uu dhaqmayo macnaheedu inuu tahay in qaaradii uu meel cad ku dayriyay haatana uu door bidaya la shaqaynta madaxweyne Vladimir Putin haddaba maxay bari wadamada Yurub miiska saari doonaan maxayse ku oran doonaan Trump suuragal ma tahay bari wax weyn inay isbedelaan oo go'aanadii Trump iyo shirkii Alaska waxyaabihii la iska yiri qaarkood madmadow uu gali doono Trump mowqifkiisa miyuu ku adkaysan doonaa mase Yurub ayaa tanaasuli doonta oo Trump ayaa ka maarminaya dalka Mareykanka warbixin xiiso leh oo arrintaasi la xiriirto oo caawa warbaahintuba ay sii bilaabeen inay falanqeeyaan wararkaasi ayaan idinla wadaagi doonaa madax kala duwan oo qaaradda Yurub ayaa safraya yaa kamida hogaamiyaasha bari halkaasi tagaya ilaa caawa xaqiijiyay warbixin dhameystiran ayaan idiga siin doonaa sidoo kale madaxda halkaasi tagi doonta inta waxaa noo raaci doona haddii uu Rabbi saamaxo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa si la yaab leh uga hor yimid dalabka Vladimir Putin uu doonayay inuu ku qaatay qaybo ka mid ah dhulka Ukraine waxa uu yiri taasi ma aha mid suura gali karta arrinta Ukraine ayay ka goodaa waxa labeeyana waa Yurub waxa Trump iyo waliba Putin ay isku sheegeen umalayn maayo ayuu leeyahay inay sax noqon doonto haddaba dalka la yiraahdo Faransiiska gaar ahaan Emmanuel Macron oo hogaamiya maxaa ku taagay ama lakad uga dhigay haddii aan si kale u dhigo madaxweyne Putin ma waxa la qalqaalinayaa isku dhaca Faransiiska iyo waliba dalka Ruushka xageesa wax ku dhamaan doonaan barnaamijka ayaan si gaara arrimahaasi ugu lafaguri doonaa akhyaarta in nala socotay waxa inta raaci doona hogaamiyaha dalka la yiraahdo Jarmalka waxa uu leeyahay wax badan ayaan dunida u sheegnay reer galbeedka ayaa macno kale oo qiimo ka sameynaya laakiin shirkii Alaska ka dhacay ee Trump uu ku casuumay madaxweyne Vladimir Putin waxay kor u qaaday qiimaha Trump inana waxaan ka qaadnaa ayuu leeyahay qiimo dhac hoos oo aad u ballaaran haddaba tani waxay ka dhigan tahay hinaase mase waxa lagu tilmaami karaa xaqiiqadii oo daah laga qaaday taxanaha labaad ayaa daawanaysaan waa 17 bisha August sanadka 2025 ku horeeyo dhinaca Faransiiska madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron ayaa u muuqanaya nin si weyn uga soo horjeeda tallaabada la doonayo in qaybo ka mid ah dalka Ukraine loogu gooyo dalka Ruushka kadib markii laga tixraacay hadalkii iyo waliba shirkii qiimihiisu sareeya ee ka dhacay saldhigga military ee ku yaalay Alaska oo ay isugu yimaadeen madaxweyne Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin oo in muddo go'doon siyaasadeed ku jiray una qabateyn waaweyn loogu hanjabayay Emmanuel Macron waxa uu leeyahay tallaabooyinkii lagu qaaday Alaska uma muuqanayaan kuwa si dhaba boqolkiiba boqol u hirgeli kara Faransiisku waxa uu cadeynayaa mowqifkiisa arrinta Ukraine iyo dhulkeeda iyada ayay ka goodaa Trump ayaana bixin karin Putin ayaan iska qaadan karin haddii se Ukraine ay ka soo gudubto Soomaalida waxay tiraahdaa dhaxal goronyo nabad ayaa iska leh oo waxa arrintaasi ka sheekayn kara go'aanna ka gaari kara ayuu yiri Faransiiska iyo waliba wadamada kale ee Yurub waxay tani u muuqataa inay hadda xiisadda aad u sii kordhayso hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo la filayo in kulamo aad iyo aad xasaasi ah ay uga dhacaan maalinta bari haddii Ilaahay yiraahdo aqalka cad ee Mareykanka isla markaana inta badan madaxda wadamada Yurub ay halkaasi tagi doonaan kuwaasi
oo qaarkood ba caawa xaqiijiyeen kulankaasi inay wax ka oran doonaan. Volodymyr Zelensky madaxweynaha waddanka Ukraine ilaa iyo caawa teleefankiisa ayuu dhinac kasta oo Yurub ku wacaya. Waxa uu leeyahay Ukraine waxay u baahan tahay in Yurub ay badbaadiso. waxaan soo jeedinayaa ninka la yiraahdo Trump inaan la igu eegan maadaama wixii igu dhacay dunida ay ogeyd hadda oo ay tala meel u taala isaga iyo Trumpna in aan kaliya lagu hadlayn. haddaba maxaa dhacaya biri sida ay ku waramayaan wargeyska Washington Post iyo waliba kan kale New York Times waxaa la sugayaa maalinta biri shir weyn inuu ka dhaco magaalada Washington DC. shirkaasi uu ka qayb galaya madaxweynaha dalka Mareykanka iyo sidoo kale dhigiisa waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky iyadoo ay wehliyaan hogaamiyaal reer Yuruba oo aad u sareeya kulankaasi inay ka qayb galaan. qaar ka mid ah madaxda wadamada Yurub ee ka qayb galaya kulankaasi ayaa ilaa iyo hadda liiskooda caawa la shaaciyay kuwaasi oo doonaya kulamo ballaaran oo xasaasi ah in ay la yeeshaan. wafdiga midowga Yurub haddaba waxaa ka mid noqon doona Friedrich Merz oo ah ra'iisul wasaaraha Jarmalka. waxaa xafiiskiisa uu sheegay inuu ka hadli doono xaaladda Ukraine iyo dadaalada nabadeed. dalkaasi Jarmalku waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn Ruushka cadaadiska u saarayay laakiin hadda mar kale ayay talada iyo miisku fariisan doonaa dalkaasi Jarmalka. madaxweynayaasha ilaa iyo hadda xaqiijiyay listigooda caawa uu soo baxay ee biri Mareykanka gaari doona waxaa ka mid ah Emmanuel Macron. xafiiskiisa madaxtooyada waxa uu sheegay in Macron oo wali isku dayayo isku duwidda Yurub iyo Mareykanka si loo gaaro buu yiraahday nabad waarta oo cadaalad ku dhisan. sidaas ay madaxtooyada Paris caawa ku dhawaaqeen. Giorgia Meloni ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa sidoo kale noqonaya dadka biri u safri doona Washington DC waxana uu ka qayb galaya wada xaajoodka sare. Ursula von der Leyen gudoomiyaha guddiga midowga Yurub waxa ay xaqiijisay ka qaybgalkeeda iyadoo tilmaantay in shirka uu si weyn uga casuumay Volodymyr Zelensky isla markaana ay si gaar ah u xiisaynayso. Alexander Stubb madaxweynaha Finland ayaa isna bartiisa X caawa ku xaqiijiyay inuu ka qayb gali doono shirkaasi isla markaana Finland walaacyo badan ay qabaan ay miiska saari doonaan. Mark Rutte xogayaha guud ee NATO waxa uu isna sheegay in kulankaasi uu ka qayb gali doono. Zelensky iyo madaxda kalena ay kala wada hadli doonaan arrimaha amniga gobolkaasi Ukraine hadda dagaaladu ay ka taagan yihiin. haddaba yoolka shirka wadamada Yurub waxyaabaha ugu ballaaran ay miiska saari doonaan waxaa ka mid ah in gardarrada Ruushka waa sida ay leeyihiin laga hortago isla markaana aanay suuragal ahayn in dhulalka istiraatiijiga ahaa ee beeraha iyo xeebaha lahaaba aan loo goyn waddankaasi Ruushka isla markaana waxyaabaha aadka u ballaaran oo Putin miiska soo saaray aan la aqbali karin in si wada jira loo qaato. waxaa ka mid ah in curriculumka waddankaasi ama manhajka haddii aan si kale u dhigo lagu daro in luqadda koowaad ee Ukraine laga dhigo luqadda ay ku hadlaan dadka Raashiyaanka iyo waliba kaniisadaha Kirishtaanka madhabta ay aaminsan yihiin dadka Ruushka Orthodox-ka la yiraahdo in loo sameeyo ilaalo ballaaran taasi oo ay dadku hadda aad ula fajacsan yihiin. tanina waxay leeyihiin Yurub waa dhaqan dooris aan la aqbali karin. xiisadda Donbas ayaa noqonaysa midda ugu ballaaran oo ah gobolka qiimihiisu sareeyo oo inta badan qamadiga lagu beero oo hadda uu doonayo Ruushku inuu laqo. waxaasi oo dhan wadamada Yurub waxay u arkaan bahdilaad weyn oo lagu sameynayo Trumpna ay u eg tahay in uu garba qaban doono. dhinaca Jarmalka haddii aan imaado isla wararkaas ayaan ku dhex jiray. waxa ay tilmaamayaa hogaamiyaha guud ee Jarmalka Friedrich Merz ninka la yiraahdo waxa uu leeyahay shirka Alaska waxa uu dhisay buu yiri sumcadda Putin laakiin waxa uu meesha ka saaray uu bahdil ku sameeyay hogaanka wadamada Yurub oo hadda walaac badan dareemaya. ninkan hadalkiisa waxa uu ku bilaabayaa marka la fiiriyo sida warbaahinta dawladda Jarmalka ay ku dhawaaqday ee la yiraahdo ARD waxay sheegtay in shirkaasi uu lahaa protocol ballaaran taasi oo farxad weyn ka dhigtay baa la yiri amaba ay si weyn u bombooniyeen warbaahinta Ruushka sida uu laga soo xigtay
hogaamiyaha dalka Jarmalka isagoo sii hadlayay wuxuu yiri wax yar oo ka hooseeya ayay ku filnayd ma jirin baahi in la siiyo heerkan oo mustaqbalka dhan loo saadaalinayo wuxuu leeyahay ninkan Putin la yiraahdo ilaa iyo heerkan in la gaarsiiyo maba mudnayn wax yar oo macno lahayn in lagu soo dhaweeyo ayay ahayd inkastoo uu dhaleeceeyaha maamuuska shirka Merz waxa uu sheegay in dhaqanka Trump uu la soo baxay xuduudaha ay hore uga heshiiyeen isaga iyo madaxda Yurub inkastoo ay jireen buu leeyahay hal ama laba sawir oo laga yaabo inay ahayd kuwa xanaaq geliya haddana waxaan aaminsanahay in shirkaasi uu horumar leeyahay wuxuu leeyahay sawirada laga qaado ninkaas hal iyo laba sawir ee ku filnayd laakiin ilaa heerka in la gaarsiiyo ma ahayn si kasta waxay dhacay laakiin hadda in xoogaa horumara la sameeyo ayaaba wax fiican ayuu leeyahay waayahay mowqifka Jarmalka ee arrimaha Ukraine Merz ma uusan diidin suurtagalnimada Ukraine in ay yeelato tanaasul dhuleed balse waxa uu si adag u sheegay ma jirto tanaasul dhuleed oo dhici kara ka hor inta aan la gaarin heshiis nabadeed oo rasmi ah meesha u baahan inaad aad u fahanto ninkan wuxuu leeyahay hor Ukraine annaga hadda xabo uma naal inay iyada isfurato oo dhulkeeda ay isku badbaadiso wax weyn waaye laakiin annaga shida kama qabno hasaatee horta waa in nabad la qaato Ukraine ay hesho in la badbaadinayo haddii in kamid ah dhulkeeda ay bixiso